Jaliyada Somaliyeed ee Kasoo Jeeda Shabelaha hoose kuna dhaqan magaalada Kambala ee caasimada dalka Uganda ayaa waxay cabasho xooggan ka muujiyeen nidaamka maamulka koonfur galbeed iyagoo ku eedeeyay inaysan iska xilsaarin wax u qabashada dadka ka soo jeeda deegaankaasi. Maahir Cusmaan ayaa warkan ka soo diray Kambala. qaar ka mid ah Jaliyada Somaliyeed ee Kasoo Jeeda maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee ku sugan magaalada Kambala ee caasimada dalka Uganda ayaa waxay maanta isugu yimaadeen kulan balaaran oo ay kaga hadlayeen amni daro iyo dhibaatooyin kale oo ay sheegeen inay ka taagan tahay gobolka Shabeellaha hoose. dadkii kulanka ka soo qayb galay oo isugu jiray dhalinyaro, macallimiin, culimo iyo haween ayaa waxa ay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya shariif xasan ku eedeeyeen inuu ka gaabiyay wax ka qabashada cabashooyinka ka soo yeeraya dadka ku nool Shabeellaha hoose ayagoona madaxda ugu sareysa dalka ka codsaday inay soo fargeliyaan arrinkaasi. gobolka Shabeellaha hoose maanta meeshii lagu soo heganay dadweynaha kii waqooyi jirkii galbeed jira meeshii lagu soo heganay way hadduu maanta dadkeedu uu noqday dad qaxooti oo herooyinka xamar ku xireysan oo koonfur galbeed meeshii wabiyada maray oo beerihii laga soo guranayo muuska beerihii laga soo guranayo galeyda yaanyada basalka adduunyada lagu sameeyay lagu taabay hadii maanta oo beerihii dhan burburay adduunyada dhan burburtay oo dadkii ku noolay gobolka Shabeellaha hoose hadii maanta lagu biilay xamar ay short sugayaan feel ku jiraan. waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo dawladda dhexe in ay wax ka qabato xildhibaanadiina matalayay ee shaatigii shacabka watay ee rabitaankeena meesha ku koray shalay markay muujiyeen dareenkoodii wuu xirxiray ilaa hadda haddaadan ogeyn waxa xabsi ku jira 3 xildhibaan oo u xirxiran inay muujiyeen aragtidooda kaliya arrintaasna wax la qaadan kara ma ahan wuxuu xanibay in laga duul ama la soo dego qof mucaarad ahna kuma noolaan karo beedhabo mana ka soo degi karo qof mucaarad ku ah shariif sakiin arrintaasna wax Soomaaliya ay qaadan karta ma ahan. marka madaxweynaha Soomaaliya codsi u diraya waxaana leeyahay dadkaas koonfur galbeed waxba inay ka qabato diyaar uma ahan danahooda gaarka ay fiirsadaan dadkaas way dhibaataysan yihiin marka dawladda Soomaaliya hal mar rajo inay noo yeesho hal mar xataa ka hadasho dadkaas ama wax un isbedel ay keenaan. ma jiro hal xildhibaan ama hal wasiir ee gobolka Shabeellaha hoose xafiis ku leh ma jiro waa wax laga dhinto waa sababtoo ah meeshuu jooga wuxuu sheeganayaa maamul inuu gobolku yahay uu dhaartay mana hayna ilaa ay hadda 4 sano ilaa 5 sano dawladdan sii horeysay ilaa ay tan hal wasiir ama hal xildhibaan oo gobolka Shabeellaha hoose laga soo doortay ama xafiis ku leh ama xildhibaan xafiis ku leh ilaa hadda anaga ma hayno. waxaan sidoo kale cambaareen u jeedinaynaa dawladda dhexe oo og meel u jirta 50 kilomitir wax ka dhacaya gubka ka dhacaya dagaalka ka dhacaya IDB-da ka dhacayso oo barakacinta ah shacabkii Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Shabeellaha hoose aan u kala harin dhammaan qaybaha bulshada ayu qabiil oo degan gobolka Shabeellaha hoose ayagoo u soo cararaya amni daro. Maahir Cusmaan walaayo telefishinka caalamiga Universal magaalada Kambala ee caasimada dalka Uganda.